kusoo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Ma jeclaan lahayd inaad ku barato luqadda Englishka si online ah adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga? Haddii ay tahay jawaabtaadu haa, Akademiyadda Fahan waxay idiin diyaarisay koorso dhammaystiran oo luqadda Englishka ah. Koorsadan waxay ka kooban tahay 3 level ama 3 heer. Heerka koowaad waa Basic English ee ugu talagalnay ardayda bilowga ah looga bilaabi doono ABC-da ilaa iyo meel fiican laga gaarsiiyo ardayga. Waa buug ka kooban 62 casharo video ah iyo buug PDF oo qoraal ah. Sidoo kale waxaynu idiin diyaarinay Spoken English oo ah heerka labaad. Spoken Englishka waxaynu ugu talagalnay ardayda heerka dhexe ama heerka sare ah. Waa buug ka kooban 102 casharo video ah iyo buug PDF ah. Buuggan waxaad ku baranaysaa ku hadalka luqadda Englishka. Marxalad kasta aad ku sugan tahay wixii aad ku hadli lahayd ayaad ku baranaysaa. Sidoo kale waxaan idiin diyaarinay naxwaha guud ama General English Grammar oo aad ku baran doontid naxwaha luqadda Englishka oo dhammaystiran. Haddii aad danaynaysid inaad ka diiwaangeliso koorskan online-ka ah, fadlan la xiriir WhatsApp number-ka shaashada kaaga muuqdo si lagu siiyo macluumaad dheeraad ah iyo casharo tusaale ahba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Halkan waa Fan Academy, magacaygu waa Axmed Cabdiqaadir. Kusoo dhawaada darsiga maanta. Darsigan waxaynu ku baran doonaa vocabulary part 11. waxaynu ku guda jirnay barashada ereyada Englishka kuwooda ugu muhiimsan inagoo marayna casharkii 11aad qaybtii C. Connect verb to join one thing to another, to unite, to link. Connect waa verb, waa ficil. To join one thing to another waa in shay kale lagu biiriyo. To unite in la mideeyo ama to link in la isku xiriiriyo. Connect micnaheedu waxa weeyaan isku xiriirin. Consider verb to think about carefully. Consider waa verb ficil. To think about carefully in shaygan si taxadar leh looga fikiro. Waa markaa verb way ficil tixgelin wa in la siiyo tixgelin gaar ah shaygan. Consider. Constitution noun, the written general laws and ideas that form a nation's system of government. Constitution waa noun, the written general laws waa qaynuunka ama qawaaniinta guud ama shuruucda guud ee qoran iyo fikradaha that form sameeya a nation's system of government, systemka ummadeed ee dowladnimo. Constitution marka waxa weeyaan dastuur. Connect isku xirid, consider tixgelin, constitution dastuur. Contact noun, the act of touching or being close to a person or thing. He was in contact with animals that had the disease. Verb, to communicate with someone by calling or sending them a letter, email, etc. I tried to contact him at his office, but he wasn't in. Contact waa noun. Mar waxay noqotaa verb labadaba. Markay noun tahay marka waxa weeye the act of touching or being. Waxa weeye taabasho. Or being close to ama in loo dhawaado a person or thing, qof ama shay. Shay ama qof in la taabto ama aad loogu dhawaado waxaa la yidhahdaa contact. Tusaale, he was in contact with animals that had a disease. Wuxuu taabtay ama u dhawaa xayawaan cudur qabay. Verb markay tahay ficilka marka, to communicate with someone, in lala xiriiro ruux, by calling ayadoo caadi loo wacayo, or sending them ama loo dirayo a letter, warqad ama email, etc. iyo wixii la mid ah. etc. iyo wixii la mid ah. I tried to contact him at his office. Waxaan isku dayay inaan kala xiriiro xafiiskiisa, but laakiin he wasn't in, muusan ku jirin xafiiska, muusan joogin. Contact waxa weeye marka taabasho ama la xiriirid. Contain verb, to have something inside
or include something as a part. Contain waa to have something inside. In wax ay ku jiraan gudaha, sida wax shay dhalo ku jiro oo kale, ama container, or include something as a part, ama shaygan kale uu qayb ka noqdo. Contain la yidhahdaa marka. Contain waa maxay? Shaygan wuxuu ka kooban yahay ku dhex jiraa, gudaha kaga jiraa, ama shaygan wax ka mid ah oo ku dhex jira waxaa la yidhahdaa contain. Container, container, noun, a box, bottle, or can used to hold something. Marka container waxa weeyaan noun, waa sanduuq, box, bottle dhalo, or can gasacad, used loo isticmaalo to hold something in wax lagu hayo. Continent, continent, noun, any of the 7 great land areas of the world. Continent waxa weeyaan dhulalka waaweyn ee adduunka, sida qaaradaha. Continent marka waxa waaye qaarad. Continue, continue, verb, to go on doing or being. Continue waa verb, waa ficil, to go on doing, in shaygan samayntiisa la sii wado, or being, ama qofkan siduu yahay inuu sii ahaado. Continue waa sii wadid. Control, verb, to direct, to have power over. Control waa verb, waa ficil, to direct, in la hago, to have power over, ama in laga awood ronaado la xukumo. Marka control waa gacan ku hayn ama xukumid. Convention, convention, noun, a large meeting for a special purpose. Convention waa noun, micnihiisu waxa waye large meeting, waa kulan ballaaran for a special purpose, loogu talagalay ujeedo gaar ah. Marka convention waa shirweyne. Cook, verb, to heat food before eating it. Cook waa verb, micnaheedu waxa weeye to heat, in la kululeeyo, food cuntada, before eating it, intaan la cunin ka hor. Marka cook waa karin. Cool, adjective, almost cold. Cool waa qabow. Cooperate, cooperate, verb, to act or work together. Cooperate waxa weeyaan in si wada jira loo shaqeeyo, ficil weeyaan, si wada jir u shaqayn weeyaan, wada shaqayn. Control waa maamulid ama xukumid. Convention shirweyne. Cook karin. Cool qabow. Cooperate wada shaqayn. Copy, verb, to make something exactly like another. Noun, something made to look exactly like another. Copy waxa weeyaan copy garayn, in la sameeyo dhab ahaantii wax u eg shay kale, ama in la sameeyo wax kale u eg. Marka copy waa copy garayn. Correct, correct, adjective, true, true, free from mistakes, verb, to change to what is right. Correct waxa weeyaan dhab ah, aan qaldaneyn, wax saxan weeyaan. Free from mistakes. Markay verb tahay, to change to what is right. To change to what is right, in shay qaldan loo bedelo wax saxan. Correct waa saxid, in la saxo. Count, verb, to calculate the number of people or things in a group. Count marka waxa waaye verb, to calculate, in la xisaabiyo the number, tirada of people dadka, or things ama ashyaada, in a group ee kooxdan ka mid ah. Marka count waa xisaabin. Copy, copy garayn, in la sameeyo shaygan shay kale u eg. Correct saxid ama sax ah. Count xisaabin ama tirin. Corruption, corruption, noun, actions taken to gain money or power that are legally wrong.
corruption waa noun waa ficilada la sameeyo si loo helo lacag ama awood that are legally wrong sharci ahaan laakiin khaldan. Corruption waa musuq weeyaan. Cost noun the price or value of something. The cost of the book is $5. Verb to be valued at. The book costs $5. Cost waa noun macnaheedu waxay weeyaan the price or value of something shaygan qiimaha uu joogo. Tusaale the cost of the book is $5. Qiimaha buuggan waa $5. Verb to be valued at in la qiimeeyo. The book costs buuggan qiimihiisu waxa weeyaan $5 $5. Cotton noun a material made from a plant of the same name. Cotton waa noun a material waa aalad made from laga sameeyo a plant ee dhir of the same name isla magaca cottonka leh. Marka waxay noqonaysaa cotton suufka waa dhirta suufka ay baxda ayaa la yidhahdaa cotton. Corruption musuq. Cost qiimo. Cotton suuf. Country noun a nation the territory of a nation land away from cities. Country waa magac waxa weeyaan qaran waddan ama the territory of a nation waa dhulka qaranka uu leeyahay. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa land away from cities dhul ka fog caasimadaha. Waxaa loo isticmaalaa baadiyo country. Court noun where trials take place where the judges make decisions about law. Court waa noun where trials take place waa meesha maxkamadeyntu ay ka dhacdo where halka judges qaadiyada dadka wax xukuma make ay ku sameeyaan decisions go'aanada about ku saabsan law sharciga. Cover verb to put something over a person or thing. Noun anything that is put over a person or thing. Cover markuu verb yahay waxa weeyaan daboolid to put something over a person in shay qof la dul saaro or thing ama shay kale la dul saaro waa daboolid. Noun markuu yahay anything that is put over a person or thing wax kasta oo lagu daboolo qof ama shay marna waa daboolid marna dabool. Crew noun a group of people working together especially all those who work on and operate a ship aircraft etc. Crew waa noun a group of people working together waa koox dad ah oo si wadajir ah uga shaqeynaya ama u shaqeynaya especially khaasatan all those who work on dhammaan kuwa ka shaqeeyo and operate ka howlgala ship markabka aircraft diyaaradaha etc iyo wixii la mid ah. Create verb to make to give life or form to. Create waa samayn ama abuurid. Creature noun any animal or human. Creature waa makhluumaadka o dhan xayawaan ha ahaato ama bini aadan ha ahaado. Crew marka waxaa leeyahay shaqaalaha markabka iyo diyaaradaha iyo wixii la midka ah. Create waa abuurid ama samayn. Creature waa makhluuq. To be continued insha Allah waan sii wadi doonaa qeybaha ka haray. Waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen videoga haddaad ka heshay fadlan like subscribe share comment aad mahadsantihiin dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.